السلام عليكم. عصر دانييرتا دكتور مصطفى محمود. عصر دانييرتا عصر القرود، وكتاب قري الدكتور مصطفى محمود دختر عالم مفكر إسلامي مصري wuxuu oga hadlayaa xaaladda daanyeernimada ee bini'aadamku ku jira xilligan. wuxuu leeyahay digtoorku deegaankii dihnaa ee bikrada ahaa cagta ayaa la mariyey, kaymihii dihnaa sidoo kale waa la xaalufiyey, webiyadii waa la wasaqeeyey, waxaana lagu guray sun iyo kiimikaal. badda sidoo kale nukleer iyo sun ayaa laga buuxiyey. hawada aan neefsanayna waxaa lagu wasaqeeyey qiiqa gawaarida, qiiqa warshadaha waaweyn. magaalooyinkii malaayiin qof ayaa buuxisay, heer in la neefsada ciriiri noqotay. bani'aadamku wuu hormaray, waxyaabo badan oo mucjise ayuu sameeyey, laakiin horumarkaas wuxuu keenay fasahaad iyo musiibooyin badan. bani'aadamku wuxuu qarxiyey unugta nukleerka, cudurro badanna daawo u helay, hawada sarena gantaala iyo dayax-gacmeedyo u diray. waxaan samaynay sun aan ku buufinno cayayaannada lidka nagu ah, beerahana cunaayo. aad iyo aad ayaan arrinkan ugu faraxnay annagoo leh wax soo saar badan ayaad helaysaan. laakiin waxaan ogaanay in suntaas beeraha lagu buufiyo sidoo kale ay laynayso cayayaanka faa'iidada u ah beerta, sida shinnida. xoolihii cunaana cudurro ka qaadayaan, hilibkooduna noqonayo mid sumaysan. shimbirihii ayaan hawada ku dilnay, kalluunkii ayaan baddii ku sumaynay, xeebihiina wasaqaynay. insaanku maanta wuxuu noqday mid hami iyo murug saaran yahay, wejiyadaas cabursan, dadkaas farxaddii iyo qosalkii ka guuray, xitaa haddii ay haystaan malaayiin lacag ah. magaalooyinkii waxay noqdeen garaashyo waaweyn, shiirka baasiinka, shiirka shidaalka. wuxuu ku sii daray insaanku sigaarka meel walba lagu cabbaayo, xitaa qofka aanan cabbin 24 saac sanka ka galaayo, kuna reebay dhibaato la-eg midda kan cabbaayo ama ka daran. insaanku intaas kumuu ekaanin, wuxuu uga sii gudbay wasaqaynta maqalka. halkan waxaa loola jeedaa qaylada codadka dhaadheer, muusikada cirka ku jirto, makaroofannada iyo samaacadaha meel walba ka daaran, heer dhagaha wax laga maqli waayey, idaacadaha iyo tiiviyada meel walba ka daaran sidoo kale. wuxuu bani'aadamku intaas uga sii gudbay wasaqaynta akhlaaqda, raadiyayaashay tiiviyada shaashadaha baahinayo wax walba oo xun, heer qolalka jiifka fadhiga meesha aan ku noolnahay noogu soo galeen. dhagahanagana aan ku maqlayna hadalla qaawan, anshaxumada qayaxan, hadallada ku baaqaaya galmada iyo shukaansiga qaawan, kicinta shahawaadka. waxaasoo dhan waxay ka dhacayaan meel ay ciyaalka ka arkayaan, ka maqlaayaan, si ay udubdhig ugu noqdaan mustaqbalka dawladda daanyeerta. jiilka casriga daanyeerta hoggaamin doono jiil nasakhan, fooraro, caqli aanan lahayn, shahwo iyo naf iyo dhalanteed hoggaanka u hayo. wuxuu leeyahay digtoorku mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ku wajahannahay casriga daanyeerta. inkastoo insaanku hormaray, hawada aalada u diray, dhulkana batrool ka soo saaray, iyadoo intaasoo dhan jiraan, haddana wuxuu waayey xakamaynta naftiisa. wuxuu waayey dadnimadiisii, bani'aadanimadiisii ka qof ahaan, ka insaan ahaan. waxaan maanta noolnahay xilli insaanku yahay mid naxariis daran, qalbi adag, jaxaanjax aanan lahayn, ka liito insaankii dembeeyey xilligii dhagaxa la isticmaali jiray. waxaad arkaysaa qof wadda taagan oo kumanaan gaari gacanta u taagayo, laakiin aysan jirin cid u istaagayso. tallaabooyin badan ayaan dhinaca horumarka u qaadnay, sidoo kale in la mida ayaan dhinaca dambe u qaadnay. fannaanad reer galbeed caan ah ayaa la weydiiyey ra'yigeeda ku aadan jacaylka, waxayna ka mid tahay dadka diidan guurka ee rabo xiriirka xoolanimada. waxay ku jawaabtay, aniga wax aanan ka ahayn xiriirka maadiga ma aqaano, jacayl ma aqaano. xiriirka ninka ama ragga igala dhexeeyo waa midkaas dhinaca jirka ama lacag keliya. wuxuu isweydiinayaa digtoorku, haddaba haweenaydaas waxa hoggaaminayo oo ay daba socoto waa maxay? waa xubinteeda taranka. bani'aadanimo iyo dadnimo ma fiirinayso. waa xilliga daanyeerta. bishaaraysta, waa xilliga daanyeerta. wuxuu fasal ka mid ah fasalada kitaabka uga hadlayaa digtoorka waxaa jacaylka lagu magacaabo xilligan.
jacaylka zamankan haddaad fiiriso waxaad arkaysa ayuu leeyahay digtoorku in furiinkii batay iyo xaaladaha kala fogaanshaha oofintiina yaraatay qofku leeyahay xiriiro badan laba gabdhood markay sheekaysanayaan maanta sheekadoodu waa hebel ayaa i khiyaanay hebel ayaa iga tegay waxaad arkaysaa maqaayadaha kafeteeriyaasha jaamacadaha iyo iskoolada gabdho iyo wiilal daafaha is haysto xiriir aanan dhaafsiisnayn jacayl dhinaca jirka nolosha dadka magaalooyinka waaweyn waa mid ebera hoos ka maran qofku isu beddelaya addoon caabuda shilinkaas wax walba oo wanaagsanna iloobay subaxdiisu u baxo ayuu habeenkii imaan isagoo daalan maalmaha fasaxana wuxuu raadin bal meel ooga gabbado murugadaas iyo hawshaas insaankaas ku nool noloshaas maadiga ee engegan wuxuu raadin bal inuu helo ilbiriqsiyo raaxo ah haddaad maanta adduunka fiiriso dadka ugu dalxiis aadidda badan waa reer galbeedka kama ahan adduun iyo cilmi kororsi inay ummadaha kale wax ka ogaadaan ee waa ka carar noloshaas holaca tufaysa ay ku jiraan waxaad arkaysaa in uu kumannaan kilomitir jaraayo qofka ayaga ka mid ah si uu u aado xeeb waddan hebel ku taallo bal inuu raaxo yar dareemo hadda dharka dhigto kadibna isqaawiyo markuu ku soo laabto dalkiisina oo uu shaqo bilaabo murugadana soo weerarto ma helaayo waxaanan ka ahayn in uu ismarjiyo isdilo naftiisa ka takhalluso waddamada dadkoodu isdilaan waa kuwa ugu qanisan ugu horumarsan maanta adduunka sida Maraykanka Jabaan iyo wixii soo raaco waddamadaas waxaa ka jira nolol dhinaca galmada lagu tilmaami karo mid xayawaannimo ah in qof walba sameeyo xiriirkii uu rabo sharci caqli iyo diin celinaysana aysan jirin waxaa ku badan wax lagu magacaabo single motherada hooyo doob ah oo ay ula jeedaan gabdhahaas iskuullada ee jaamacadaha dhigto ee ciyaalka sida sharci darrada ah ku dhalay waxaa jira warbixinno laga sameeyay arrinkaas in kumannaan gabdha iskuulla dhigto yaryara ay haystaan ciyaal waa casriga daanyeerta qayb ka mid ah fusuusha kitaabka ayuu doktoorku isweydiinayaa waa tuma dumarka midda wanaagsan marwada faadilka wuxuu soo qaatay oraad towraad ah oo loo nisbeeyay nebi Suleymaan asagoo leh marwo faadil ah oo wanaagsan yaa ay tusi karo waxay ka qaarsan tahay wax dhulka yaalla oo dhan lu'luuda zumurud dahab iyo wixii la mid ah waxaan baaray kun dumara kamana helin haddaba waa tee marwada wanaagsan ee faadilka ee Suleymaan raadiyey kadibna waayey wuxuu leeyahay doktoorku taariikhda waxaa soo maray dumar wanaagsan sida Maryam bintu Cimraan Khadiija xaaskii rasuulka Aasiya xaaskii Fircawn dumarkaas waa kuwa waahiro noolaa haddaba zamankan aan noolnahay waa tee marwada faadilka ee wanaagsan haddii aad fiiriso warbaahinta meediya fanaaniinta dumarka midda faadilka waxay u yaqaanaan middaas jirkeeda keliya ku soo suuq tagtay marwada faadilka waa middaas awoodda inay qalbigeeda ka siibto ciilka iyo carada nafteedana dabci uga dhigto cafin iyo musaamaxa deganaan iyo naxariis marwada wanaagsan waa middaas aanan aqoonin aargoos iyo caro marwo kuu noqoto hooyo iyo tiir aadan dhicin markaad ku tiirsato fasalka shahawaadka wuxuu leeyahay doktoorku qofku markuu qaangaaro waxaa shidmaayo matoorka shahwadiisa sidii hub nukleera jirkii ayaa dalbanayo qoondadiisa ku aadan raaxada dhinaca jirka qofka dhallinyarada wuxuu dareemi in ay wax riixayaan loolan adag una ku jiro middaas waa barbaarnimada waa waxa lagu magacaabo qofka markuu soo koraayo waxaa la socon kara xaalado qofka dhallinyarada ku dhacaya godka madow ee xumaanta madaxana taagayo ayagoo leh jirkayga aniga u madax bannaan waxaan rabana samayn laakiin waxaa qofkaas laga rabaa inuu ogaado in arrinku ahayn jir iyo raaligelintiisa keliya in arrinkaas lagu magacaabo daanyeernimo hadduu qofku si indhala'aana u raaco naftiisa iyo waxa ay shahwadiisa farayso kuwaas akhlaaq iyo diin dhaqan iyo anshax aanan aqoonin ee dharka dhigtay ayagoo leh xorriyad iyo madax bannaani shakhsiyadeed ayaan gaarnay waxay gaari doonaan marxalad ay ogaan doonaan in arrinku xorriyad ahayn ee yahay addoonnimo iyo xirxirnaan qofkii badbaado u qoran tahay wuxuu ku soo baraarugi oo ayaga ka mid ah in uu ku jiray xabsi in uu addoon u ahaa shahwadiisa iyo mala awaalka raaxada beenta maanta haddaad fiiriso magaalooyinka Yurub inta badan waxaad arkaysaa wax u eg mujtamac daanyeereed
inay dadku addoon u yihiin shahwaadkooda, wiilashaasi gabdhahaas gacmaha ishaysta kumanaanka, dumarka qaaqaawan. Insaanku wuxuu insaan ku yahay marka uu iska caabiyo waxa uu jecel yahay, una dulqaato waxa uu necab yahay, in uuna noqonin daanyeer wixii naftiisa rabtaba samaynayo. jacaylka wuxuu leeyahay digtoorku, waxaad tifiyada ka arkaysaa fanaanad heesayso hees mira ahaan aanan xikmad lahayn, qiimo lahayn, dhabta isaar, beerka ii bixi, nalalka iftiinka dhaqaaqa ay samaynayso, dadka sacaba tumaayo, buuqa, heer aad u malayso in jirka fanaanadaas yahay sanam la caabudaayo, muuqaal u eg duquusta ay sameeyaan wathaniyiinta, muuqaal bani'aadanimada ka fog, una eg raxan daanyeera oo hal meel isugu imaaday. arrinkaas tifiyada ka socda wuxuu u soo gudbay waddooyinka, warbaahinta kala duwan, boorarka xayeysiinta, oo aad arkayso qof dumara sawirkeed, in shay kasta la soo raacinayo qof dumara sawirkeed. saabuuntaas musqusha taallo waxaa qolofkeeda kore ku sawiran qof dumara. waa dawarsi lagu dawarsanayo jirka qoftaas. waa casriga daanyeernimada.